dadkiisana u hiliyo habsaamin ayaate habsaamin ayaate rag madaxihi kala habane hogaamiya dhiirano ujeediya hadaf laho dadkiisana u hiliyo habsaamin ayaate habsaamin ayaate kuwa jira han yaro cadowga u heeryano boqonaha naga heeraye hulaab xume yuuna dagin ayuuna dagin yuuna dagin yuuna dagin yuuna dagin ayuuna dagin yuuna dagin yuuna dagin kuwa jira han yaro cadowga u heeryano boqonaha naga heeraye hulaab xume yuuna dagin ayuuna dagin yuuna dagin yuuna dagin yuuna dagin ayuuna dagin yuuna dagin yuuna dagin hogaamiye dadweynaho hadaalina horu soco hirdoogliya haraabiyale shacbiga ku hogaamiyo horseedkuna yuu qaldamin hogaamiye dadweynaho hadaalina horu soco hirdoogliya haraabiyale shacbiga ku hogaamiyo horseedkuna yuu qaldamin madaxihi kala habane haldoorkiinoo kaco halyaygaan ku diirsano hurdayaha toosiyo hayin ummado ahow hayin ummada u ahow rag madaxihi kala habane haldoorkiinoo kaco halyaygaan ku diirsano hurdayaha toosiyo hayin ummado ahow hayin ummada u ahow wax badan baan haraadsanayn abaarta hadoodilayn hirtaanyadu nagu badnay maantuuno baxayla noo baxay hillac noo baxay wax badan musharaxu ma aha musharax inuu iska noqdo musharaxu waa in meelo badan laga tijaabiyaa meelo badan laga fiiriyaa layli ma aha ninkan waa hayiin waa dr maxamed nuur kaahiye layli ma aha waa hayiin hayiinkana wuxuu ku fiican yahay in la rarto neefka layliga ah ilmaha ma saaraysid soomaa saas laakiin neefka ama geela markaad raranayso ee hayiinka ah ayaad ilmaha saaraysaa soo misaa maaha haddaba maxamed nuur kaahiye waa shakhsiga hayiinka ah ee aan ii soo hullay gaas ahaan wejiyaha saawda dadka dego dadban waxaan rabnaa guud ahaan wejiyaha saawd yaan ka rabnaa inay kuuraha siiyaan ninka waayo wuxuu ku socdaa sinaan iyo cadaalad شخصنا تقص عدنا
haddee waxaa weeye inaad kuurahaada la baqaysho ma aha maanta waxaad haysataa fursad oo iskugu hiilin karto waxaad haysataa haddana fursad kale oo iska hiilin karto haddii aad iska hiiliso waxay la mid tahay inaadan u codaynin tahaye haddaad rabto inaad isu hiilisana waxaad u hiilinaysaa inaad siiso codkaaga tahaye tahaye foobi tahaye toosha tahaye toosha salaamu calaykum waraxmatullah أنا وعلي رادار شيخ محمد داهر كينيا وحنين شيء waxaan maleeyaa gaaris 3,500 oo guriyo maqaawil baa jira gaaris dadkeedu waxay baxaan kala nus intii halka ka tagoon ayay wajeer aadaan kuuraha ka soo ridaan markay kuuraha ay ka soo ridaan bigii hore oo soo galay waxay dhihi jireen marka xagga shaqa u doonatana gaaris baa tahay dadkii walaalada oo la deganeedna waa laga tegi jiray xagga la aadi jiray waxaa dhihi jiray wajeer ninkan maqaawilka wajeer gaaris joogo iyo kuwa joogo wajeer waxaan ka rabnaa Dr. Kahiya inuu sinaysiyo ma sinaynaysa midda labaad uma taagno maqaawil uma taagno bahgeri uma taagno geri wuxuu u taagan yahay ogaadeen oo dhan waxaana ka codsanaynaa inuu ogaadeen oo dhan uu mideeyo waxaa laga rabnaa hadduu ilaahayna dadka sana uu soo galana wajeerso waxay baaxadeeda ee la dhantahay 3 kursi oo MP baa leedahay waqti laakiin inuu ka dhigo uu kala gooyo uu ka dhigo 2 kursi oo si cadaaladna uu u simo midda labaadna waxaan ka rabnaa dad baa waxay leeyihiin ogaadeenka xagga joogo waan kala gogoynaa ina aad kala gogoynin oo aad la tashato qolo walba oo ogaadeen ah markii ay tahay seesees ama dhulka la kala jaray laakiin dadka ku qufulan qabiil ama midka ma aha Dr. Kahiya anaga reer gaaris ayaan nahay reer gaarisna dhib badan baan qabnaa mixishimuha dhibka aan qabno oo aan ku sheegaya kuuraha xagga yaan laga soo ridi markii xagga la aadona oo wiilasha ama caruur shaqa u doontana gaaris u doontaa la dhihi dadkii jiiraankii walaalka ahaana wax kumanna kama tagoon wax yar baa ka taga waxaa lahaa wajeer bay aadeyna middaa eeday iyo ninkii inta ka soo gelayna inaa eedaa intaa eedayna aad iska fiiriya dadkana la tixgeliya ayaan doonaynaa midda labaad oo aan kale aan sheegaya anaga ogaadeen baanu nahay ogaadeenna waa mid ummadda kale ogaadeen baa u joogtaa un laakiin anaga maqaawil waa bahgeri waa waxyaalahan kale sheegaya waa xoolihan anagoon baan sheegaynaa walaalayaal waxaan codsanaynaa Dr. Kahiya hadduu ilaahay yidhaaho dadka gaaris county ku jooga ogaadeenka oo kuuraha xagga u doonteen inay Dr. Kahiya si cadaalada u siiyo kuma socdo dulmi kuma socdo munaafiqnimo kuma socdo been wuxuu ku socdaa xaq ninka dulmiga ku socdana ilaahayna wuu qabani sababtoo ah 1963 ilaa maanta waxaa umalaynaa sida beeshiisa midna lama soo qaadin xaq buu leeyahay waxaanu nahay xoololey sac sagaal qadca sac maalin qadca hadduu u dhaho waa la laabani oo mar labada biyo ku ceshani mar walba ku ceshani oo awsa marto maxaad noqoni lahayd loo leeyahay haddaa tahay waxaa malayna garuunka baa kaa soo horrayna marka walaalayaal dadka lalaasho wataan dadka wax wataan midnimada aniga reer gaaris baa nahay insha allahu waxaan doonayaa inaan gacan furan ku soo dhoweyno Dr. Kahiya kaliyu Dr. Kahiya bismillaah dhammaan dadka sharafta leh oo iskugu imaaday halkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa idiin sheegayaa
waxaan idiin sheegayaa Gaaris waa magaalo madaxdii North Eastern. waxaan u malaynayaa waan ka dharagsanna taas markay tahay magaalo madaxda North Eastern waxaa ku nool inta North Eastern degtoo dhan. waxaan halkan u istaagay waxaa waaye qaas ahaan inaan weydiisto kuuraha dadka ka soo jeeda Wajir South, Soomaalida dhammaan ka soo jeeda Wajir South. waxaan idiin sheegayaa maalinka 9 bisha 8 waxaa dhici doona kuurihii Kenya. waana ogtihiin waddankan wuxuu ku salaysan yahay dimuqraadi. waa 5 sanaba kuura ayaa dhacaya. dowladda intii shacabka ay soo doortaan ayaa dowladda ka qayb galayso. maalinka ayadaa insha Allah qof kasta oo gaaray 18 ama ka sara oo codayn karo macnaha isdiiwaangeli waxaa loo dhiibi doonaa 6 waraaqood oo uu codaynayo 6 xubnood. xibinta koowaad waxaa loo codayn doonaa madaxweynaha waddankan. waad ogtihiin madaxweynaha hadda xukunka haya Uhuru Kenyatta waqtigiisii wuu dhammaaday. sharci ahaan Kenya waxaa loo ogolyahay qofka inuu madaxweyne noqon karo 2 jeer oo min 10 sano macnaha. wuu soo dhammaystay. hadda waxaa la sugayaa in madaxweyne cusub la doorto. xibinta koowaad marka waxaa loo codayn doonaa madaxweynahaas. waad ogtihiin 2 isbahaysi ayaa meesha maanta isku hayso. markii la dhahaa Kenya isbahaysi waa isbahaysi aan ka tirsanahay oo la yiraahdo Kenya Kwanza. isbahaysiga labaadna waa isbahaysi la yiraahdo Azimio. kan Kenya Kwanza waxaa musharax u ah Ruto, magaca loo yaqaano waaya. marka oo macnaha xagga siyaasadeedna caan uu ku yahay. kan kalena waxaa musharax u ah Raila. waad wada garanaysaan u malaynayaa. halkaas anoo ka bilaabaya waxaan idiin sheegayaa markaad u codaynaysaan madaxweynaha waa inaad xisaabtanto. 6 waraaqood oo lagu dhiibayo waxaa dhici karta wax ka yar 5 daqiiqo inaad mid kasta maaragtay aad calaamayso oo sanduuq ku rido. laakiin calaamaddaas aad calaamaysay 5 sano dambe ayay caqabad kuugu noqonaysaa. waxay noqonaysaa marka inaad fiirsato markii mid kasta waraaq kasta markaad calaamaynayso waa inaad xisaabtanto. waa inaad ku xisaabtanto qofka aad u codaynayso muxuu u qaban karaa diintaada, dalkaada iyo adiga shakhsi ahaan iyo waddankaba. marka waa inaad ku xisaabtanto inaad dhihin waayo 2 madaxweyne mid unbaa iskiga codaynayaa maya. waa inaad ka fikirto oo midkaad u codaynaysa dantaada ay ku jirto dhinac kastana aad ka xisaabiso. midda koowaad waa taas. midda labaad waa gabanihii naftiisa waxaa waaye wuxuu ku hayaa maamulkii dowladdii hoose. dhaqaalihii ka imaaday koroo dhan asagaa kuu maamulaya. waa inaad si gooni ugu xisaabtantid. midda labaad waa senatarkiina waa ninkii ku ilaalin lahay dhaqaalahaadii lagugu dhiibay countiga. waa inaad ku xisaabtantid. ninka aad xoolahaada raacsanayso waa inaad si fiican u baartid aaminimadiisa, kartidiisa oo ogaatid. markaad u codaynayso waa inaad taasna ku xisaabtantid. midda kaleod u codaynayso waa women rep, waa MP, laakiin si fursad gooni ah loo sii haweenka. waa inaad ku xisaabtantid qofka asaga ee muxuu samayn karaa, maxaa saameyn uu leeyahay, maxaa uu wax ka bedeli karaa. oociga MPgi oon hadda aniga aan danaynayo oon u taaganahay waa inaad xisaab dheeraada aad maaragtay aad
meeshaasayto wembiga markaad xisaabinaysana si gooniya waan inaad u fiirisid waayo hoos markaad u soo degto oo constituensiga aad imaado caqabad gooniyay kuugu leedahay arrintaasayto meelihii kore waa ka soo degtay hoosaad u soo degtay caqabad gooniyay kuugu leedahay waa inaad marka ku salayso calaamaddaas aad bixinayso waxyaabo badan dad muslimiin oo alla naga dhigay wax kastoon samaynaynana tilaabo kastoon qaadaynana qowl kastana waa inaan ku salayno diinteenna iyo kala cabsiga alla cabsidiisa waa inaan ku salayno sidaas awgeed embiga naftiisa waa inaad waxyaabo badan aad ka fiirisid dhinaca diiniga aad ka fiirisid xaq ahaaniya u leh aad ka fariisid dadnimadii aad ka fiirisid waxqabadkii aad ka fariisid dhinac kasta macnaha qofkaas see ula kulmi kartaa muxuu kuu qaban karaa ninka danqanaya muu yahay deegaankii ninka danqanaya muu yahay dadkii ninka danqanaya muu yahay kuwa tabaalaysan kuwa muruqmaalka ah kuwa agoonta ah kuwa aan awoodin oon lahayn qof garab qabto oo ayaga waxaan soo dhacsan karin nin dareenkaas uu ku jiro muu yahay waxyaabo badan waa inaad ku salaysid waa inaad midka hoose oo woodhkaadii ah hoos markaa u soo dhacda woodhkaadii ah waa inaad taasna aad ku xisaabtantid macnaha waxaan ka wadaa 6 waraaqoodoo laguu dhiibayo oo 5 daqiiqa ka yar aad ku calaamaynayso waa wax lagula xisaabtami doona aakhiro adduunkana 5 damba caqabad kuugu yeelan doonto marka si wanaagsan waa in looga fiirsado waxyaabo badanna lagu saleeyo siiba diiniyana lagu saleeyo dad aqlina sii aan nahay allah aqlina sii hawayaanka kale waxaan naga duwannahay aqligaas waxaan baabuurtan u samaynay diyaarad aan wada kor u marayno badda aan u kor marayno waa aqli ilaahayna sii waxa hadda aaladdan aan u samaysani waa aqli iyo cilmi ilaahayna sii waxa halkan intaan ka waco mid maraykan jooga aan u wici karo waa cilmi iyo aqli ilaahayna sii kaasi waa inaan isticmaalno wuxuu ilaahay noo siina waxaa waaye waa imtixaan waana lagula xisaabtami doonaa 6 waraaqoodoo laguu dhiibay naftooda waa lagugula xisaabtami doonaa markaa saxaysay waxaad ku salaysay waa lagugu xisaabtami doonaa waxaa idiin sheegaa walaalayaal waxaan aniga ahaa nin muslima hamina iga galay meeshaas iyo siyaasaddii markaan fiiriyo horta waxay daddeenna ku jirtaa inaan runta u codayno meel dheer ma sii gelaayo waxyaabo badan ma sii fiirinaayo laakiin dantaada maanta siday tahay 5 sano la soo dhaafay iyo maanta siday tahay markaa fiiriso dowladdaasaytow oo maalin kastana sicir bararkii uu sii socdo haddii aad 5 kala siiso maxay noqonaysaa waa inaan danteenna ka fikirno markaan taas ka soo gudbo oon u soo dhaca MPgii iyo aniga aan rabin walaalayaal waxaan ka codsanayaa inta kuurahooda uu yahay wajiha south inay garab iigu noqdaan anigoo waxay u soo maray intaas oo idinkuugu sheegay alla ka cabsi in lagu saleeyana waxaa waaye in middaasaytow anigana ficilkeeda insha allah aan ku salayn doono alla ka cabsi taasna aan rajaynaya inay igu siisaan kuuraha oo aan wada sima inta meesha joogta xaqooda aan simo cadaaladdan wax ugu sameeyo insha allah si ka wanaagsan kan gaaris jooga oo halkan ka tegay oo ka coday halkaas kan wajeer jooga iyo kan dajadabula jooga biif buurdheer ilaa iyo sarif biimadow kursi habaasweyne meel kasta joogo inaan maaragti wada simi doono insha allah taasaan rajaynayaa hadduu alla idmo walaalayaal waxaan codsanayaa kuurihiinni waxaa kaloon codsanayaa inta kuuraha ka goosatay wajiha south oo iska diiwaangelisay inuu kuurihiinna baaqanin wakhtiga ugu dambaysaa la joogaa sidii kuuraha aad meesha maaragta u geen laheedeen kuura jaab ku jiro keli waxba ma taraaye in la rido unbuu wakhti gooyaa in maaragta aad tagtaan oo kuurihiinnina aad ridaan insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu